kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad dunida dacaladeeda ka joogtaan halkana waa Rugta TV oo aad naga daawanaysaan. Fanaanka caanka ah Maxamed Siciid Biiki ayaa lagu wadaa in uu dhawaan yimaado magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya, halkaas uu markii horeba shaaciyay in uu show ku qaban doono. Alfanaan Maxamed Siciid Biiki ayaa dhawaan ka hadlay hadal ka soo yeedhay oo uu dadka ama shacabka Soomaaliyeed gabi ahaanba uu ku raali gelinayay, taas oo uu ku sheegay in uu khaldamay. hase haatee waxa uu taa beddelkeeda sheegay in magaalada Muqdisho uu iman doono showna ku qaban doono. Sidoo kalena warar aan ku kalsoonnahay ayaa waxaa soo baxaya in fanaanka magaalada Muqdisho uu ka yegleeli doono koox cusub oo lagu magacaabo Hobolada Bariga Afrika, taas oo la filayo in magaalada Muqdisho uu kaga dhawaaqo. Fanaanka ayaa waxa uu afkiisa ka xaqiijiyay oo uu sheegay in gabi ahaanba uu ka bixi doono siyaasadda, waxaanu sheegay in fanka iyo siyaasaddu ay iskaga murgeen, hase haatee uu hadda u jeesan doono sidii uu fankiisa u horumarin lahaa. Warar hoose aan helino ayaa waxay noo sheegeen in Nimcaan Hilaac iyo sidoo kale Maxamed Siciid Biiki ay qabanqaabada kooxdaasi ku jiraan, waxaana la sheegay in marka uu showga magaalada Muqdisho ku qabto kabacdina uu kooxdaasi halkaasi lagaga dhawaaqi doono, waxaana liddi ku noqon doonaan kooxda ka dhisan Hargeysa ee lagu magacaabo Xidigaha Geeska. Fanaanka caanka ah Maxamed Siciid Biiki u diga rogto magaalada Muqdisho oo uu halkaasi koox cusubna ka sameeyo, waxay noqonaysaa in fanaanka ay mucaaradadiisu badato marka uu yimaado magaalada Hargeysana uu waji gabax kala kulmo. Fanaankan ayaa ahaa fanaan hanti qaran lagu magacaabi jiray, hase haatee shacabka Soomaaliyeedna ay aad u dhibsadeen markii uu shaarka Somaliland xidhay. Maxamed Siciid Biiki ayaa ku jira fanaaniinta runtii aadka looga jecel yahay bulshada Soomaaliyeed, halkaasi oo heesihiisa kala iskugu jira jacaylka iyo wadaneedda uu ku soo bandhigo. Maxamed Siciid Biiki fanaanka ayaa iman doona magaalada Muqdisho, halkaasi oo la sheegayo in qabanqaabadiisu ay hadda gabi ahaanba kasii socoto. Shacabka reer Muqdishona waxay ku jiraan qabanqaabada ay ku soo dhaweynayaan alfanaan Maxamed Siciid Biiki oo ah fanaan runtii aad u qaaliya. Fanaanka ayaa maalmihii ugu dambeysay baraha bulshada qabsaday, kaas oo hadalhayntiisu ay badatay, sidoo kalena dadkuna ay siyaabo kala duwan uga falceliyeen hadal delqaaf ah oo ka soo yeedhay, walow uu markii dambe uu isagu sheegay in uu khaldamay, khaladkana aanu ahayn khalad ku sax laakiinse uu raaligelin buuxda shacabka Soomaaliyeed ka siiyay. Fanaanka ayaa la filayaa marka uu Muqdisho yimaado in ay noqon doonto showga uu halkaasi ku qabanayo showgii ugu horeeyay ee uu Muqdisho ku qabsado, kaas oo noqon doono showgii ugu horeeyay aad iyo aad looga soo qayb galo loona kala kiciyo. Fanaanka ayaa waxaa la filayaa xitaa in showgiisa ay ka soo qaybgali doonaan kooxo ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaaliya, halkaas oo xitaa isaga loo qabanqaabinayo in laga dhigo mas-uul ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana u weelin doona fanaanka caanka ah ee Nimcaan Hilaac oo ah mas-uul ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Fanaan Maxamed Siciid Biiki ayay shacabka Somaliland u yaqaaneen hanti qaran, taas oo gabi ahaan mid ka mid ah fanaaniinta Hargeysa ka soo shabaxday uu sheegay in uu isaga kala wareegayo jagada, taas oo uu sheegay in uu gabi ahaanba isaga jagadaasi u sharaxan yahay. Alfanaan Nimcaan Hilaac ayaa lagu wadaa in uu magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyo Maxamed Siciid Biiki. Fanaanka caanka ah Nimcaan Hilaac ayaa ah xubin ka mid ah xubnaha dowladda federaalka Soomaaliya. Haddii fanaanka caanka ah Maxamed Siciid Biiki magaalada Muqdisho uu kooxdaasi ka asaaso, Hargeysana uu ka soo jeedo, welibana uu ku jiri jiray kooxda Xidigaha Geeska ee ka dhisan magaalada Hargeysa, waxay noqon doontaa waji gabax weyn oo ay kooxda Xidigaha Geeska la kulmaan. Maxamed Siciid Biiki ayaa hore u sheegay in uu iskaga baxay kooxda Xidigaha Geeska oo uu in muddo ah ku jiray. Waxay noqon doontaa in fanaanku uu yeesho hadda koox isaga khaas u ah oo uu hogaamiye u noqdo, kuwaasi oo ka dhisan magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Xidigaha Geeska ayaa Maxamed Siciid Biiki uu kaga soo shacbaxay isaga iyo fanaaniin kala duwan oo hadda daafaha dunida jooga, oo uu ka mid yahay fanaanka caanka ah ee Nimcaan Hilaac ee hadda mas-uulka ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. waxaanay ahayd kooxda Xidigaha Geeska koox inta badan laga soo aflaxo marka fanka Soomaaliyeed ay noqoto, waxaana fanaaniintii ku jiri jiray Xidigaha Geeska ay hadda u muuqdaan kuwo kala firdhay oo kala irdhoobay, kuwaas oo dunida dacaladeeda kala galay. Maxamed Siciid Biikina waxa uu ka mid ahaa kooxda Xidigaha Geeska. Haddii kooxdaasi cusub ee Muqdisho laga aasaasina ay rumowdo oo ay sax noqotona,
Maxamed Siciid Biike waxa uu noqonayaa hogaamiyaha kooxdaasi oo looga dambeeyo isaga iyo Nimcaan Hilaac, waxaana la filayaa in jago weyn uu halkaasi ka qaban doono oo loo magacaabi doono sida ugu dhaqsiyaha badan leh. Marka uu showgiisa soo dhammaadana magaalada Muqdisho uu ku nagaadi doono, waxaana laga yaabaa in fanaanka caanka ah ee Maxamed Siciid Biike aanu Hargeysaba dib ugu soo noqonin. Waad ku mahadsantihiin daawadayaal daawashada channelkeena. Haddii aad channelka ku cusub tihiin, subscribe noo saara, share gareeya oo asxaabtiina la wadaaga si ay idiin soo gaadhaan muuqaalada degdega ah aynu soo garino. xilliyadan isdalaan rogay dhibta ka ilaashay adunba waxdaadii amba dibaaqa jiilaal xilliyadan isdalaan rogay dhibta ka ilaashay subag lo-aaiyo ku cabsiyaydo iyo abaara ka dhowray hadiim subag lo-aaiyo ku cabsiyaydo
حسوب